dad fara badan bay haddaba lacag kaga lumaan. Waa maxay nasteexada aad siinayso amba waxaad ugu waajihinaysaa dadka? su-aal haddaan dib ku weydiiyo adigu masalan haddaa aragtid imika guri $100,000 ma lagaa siin karaa $50? markaasi waxa weeye de waa wax market kaba gaadhayn, waa maxay ahayd waa wax loo soo package gareeyay dadka oo marketing looga dhigay waxa weeye, laakiin waa systemkii MLM-ka multi level marketing ama Ponzi scheme. qof walba oo bilaabaya industry-gan waxbaa ku dhaliya uu u bilaabaa. Waa maxay sababta ka dambaysa eed u noqotay broker amaba aad u furtay maanta shirkadda aynu halkan u fadhino aynu rabno inaynu ka hadalno in badan? oo financial market waxa weeye waa broker, CFD broker. waa maanta shirkad ku siinaysa fursaddii sida uga ganacsan lahayd suuqan forex-ka. waxaa jira haddaba shirkado fara badan oo funding FTMO, funding Nagas, funding Babies. shirkadaha maxaa nooga sheegi kartaa? suuqani waa suuq aad u riski badan, maxay ahayd inkastoo lacago laga sameeyo, laakiin hadda aqoon fiican u lahayn oo wixii risk management lahayn oo de maxay ahayd soo gelin koorsiyaal ku baraya waxaan sida u socdaan. free demo account xitaa oo financial market waa ka furan kartaa maanta, qof lacag kaa qaadaya ma jirto. waxaasoo dhan waa ku tababaran kartaa. marka qofkii maanta Soomaaliga de fahmaya suuqan siduu socdo, doona inuu isdiiwaan geliyo ka ganacsada suuqa forex-ka, nala soo xiriiri karaa. local deposit no waxaan karaa ku isticmaali karaa. hore waxaad u soo yara tilmaamtay in qofka Soomaaliga aad u fududayseen payment-kiisa. payment-yada noocyada Soomaalidu ay isticmaalaan way kala duwan tahay maanta. oo Muqdishada kuwa jooga FEC iyo waxyaalo kale isticmaalaan, kuwa jooga xaggan Somaliland waxay isticmaalaan zaadkii iyo dahab, qaar kale waxyaalo kala duwan bay isticmaalaan. so sideed ugu fududaysaan in payment-ka lacagahayga ku jira maanta aan ku trade garayn karo, ka shuban karo, ka isticmaali karo? waxa nidaamka aad u samayseen inuu kaga duwannahay meelaha kale. kani waa Cabdulqaadir Aadan oo ah Somali broker, sitana 12 sano oo khibrad ah. aasaasay brokerkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay oo financial, halka lagu qiyaaso $700,000 inay soo xaraysay intay ku jirtay suuqa. marka hal trade-na lagala baxay $50,000 lacag gaadhaysa. xog badan si aad uga ogaato dhamaysa xalqadan. hore waxaynu uga soo hadalnay forex-ka, laakiin su'aalo fara badan oo ka imid waxay isweydiintu noqotay garanay cidda trade garaysa say u trade garayso, laakiin waxaan lagu trade gareeyo halkuu ka imid, cidda ka dambaysa amaba waxaynu u aqaano brokerska. maanta waxaa inoo martiya Cabdiqaadir oo ah asaasaha oo financial market, oo markaasi ah brokerkii intaynu garanayno ugu horeeyay ee Soomaali ah, ee markaasi isagu uu asaasay una sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed si ay ugu trade gareeyaan meel ay dareemayaan inay iyagu leeyihiin oonan laga lahayn. Cabdiqaadir, ku soo dhawow Mehal Podcast. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal aad baan u dhowyahay. wamaasanta. waxaan doonaynaa inaynu iska bilaabano barnaamijkeena, bal markaa waa kuma Cabdiqaadir? horta walaal aad iyo aad baa ugu maasan tahay dacwadan quruxda badan leh maasan soo casumtay Mehal Podcast. Cabdulqaadir Aadan Cabdi waa nin Soomaaliya weeyaan oo degan wadanka la dhahdo Dubai, oo waxaan ku soo koray wadamada dibadaha Khaliijka iyo Faransiiskana aan ka soo dhintay tacliinta. markii 2011 waxaan tegay wadankan la dhahdo Cyprus ee ku yaala Europe. xaggaa baan ka bilaabay ganacsiga forex-ka oon khabiir ku yahay dhinaca ay brokeradu sida u shaqeeyaan. marka haddaan ku soo gaabiyo waa ka Cabdiqaadir, intii aanan garanayn maanta way garanaysaa. haddaba brokernimada iyo industry-gan maanta forex-ka xaguu kala soo bilaabmay hayaankiisu? brokerkani waxaan galay markaan wadankan Cyprus aan u tegay November 11 2011 ayaan bilaabay forex-kan. shirkado badan oo duwaliya oo ka haysta tarkhiista wadanka Qubrus ayaan la soo shaqeynayay. marka khibradeedu waxay ahayd dhinaca customer support-ka, business development-ka, compliance-ka, risk management-ka. marka intaasoo department baan soo maray. sidaan kugu sheegay waxa weeye khibradeedu waxa weeye how to set up a broker, sidii brokerka loo shaqaysiin lahaa weeyaan. marka 2011 baan bilaabay ilaa imkaan ku soo jira broker.
qof walba oo bilaabaya industrigan waxbaa ku dhaliya uu u bilaabaa ama sabababaa jira ka dambeeya. Waa maxay sababta ka dambeysa eed u noqotay broker amaba aad u furtay maanta shirkadda aynu halkan u fadhino aynu rabno inaynu ka hadalno in badan? horta shirkadda oo financial market waxaan u furay 3 qodob oo muhiim ah igu kaliftay igu qasabtay inaan furo brokerkan oo financial market. qodobka ugu horeeyay uu yahay dhinaca regulationka waxa weeye waa hay'adahan suuqa shirkadahan maalgeliska iyo investmentka iyo brokerada supervision ku sameeya. markuu brexit-kii dhacay ay ingiriisku ka baxay Europe ayay shirkadihii regulationkuna maxay ahayd ay kala faafeen. marka qodobkaasi qodobkii ugu horeeyay uu ahaa igu qasbay inaan brokerka furo markay shirkadihii oo dhan wada noqdeen offshore. qodobka labaad waxa weeye suuqii cryptocurrency-ga isna ay dad badan aad u galeen oo maxay ahayd ay cryptocurrency-gina sidii dadka suuqu doonayeen inuu dhacon. qodobka saddexaadna waxa weeye waa wax ay Soomaalidu aad iyo aad u dhaxgashay iminka oo la dhahdo funded account-ka oo yakuna markay sanadkan iminkaan ku jirno February markaan soconay shirkado badan oo funded account la xiray oo taanaan ka shaqeysan doono. badanaa dadkeenu waxay isweydiiyaan brokerada ama fikradda maskaxda ka haysta inay yihiin dad aanan Soomaali keliya noqon karin. shirkaddan macid baa kula leh mise keligaa wada asaastay? shirkaddan oo financial market anaa asaasay oo CEO and founder-kii ah. marka dad badan oo Soomaaliya aan mashruucan fahansiinayna waa dad nagu dhidi maxay ahayd Soomaali weli heerka ma gaadhin. marka waxaanu leenahay Soomaalidu maanta alxamdulillah the expertise-kaygii aan 2011ka marketka ku soo galay ilaa 2017kii brokeradan u shaqeynay laakiin markii dambe waxaan noqday consultant as a freelancer. marka shirkadahan brokerka markay doonayaan inay suuqyo kale aadaan ama new market galaan shirkad kamid ah oo FX Pro u shaqeynay 2013kii ana kamid ahaa oo suuqa Nigeria iyo Ghana u furay. shirkado kale oo shaqeynayna maxay ahayd suuqa Asian kan u furnay. marka ma sha Allah khibradii expertise-kii sidii maxay ahayd brokerka loo hogaamin lahaa sidoo u shaqeeyo khibradaas oo dhanba waan haynaa. Okay, ma sha Allah. shirkad kasta waxay leedahay shuruudo caalamiya ama laysan caalamiya qaadato. bal maxaad nooga sheegi kartaa arrinka laftigiisa? dhinaca oo financial market walaal waxaan ka haysanaa rukhsad ka soo jeeda wadanka la raahdo Antigua and Barbuda oo shirkad oo tarxiis offshore ah weeyaan. marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan rukhsadii labaad qaadano oo ka soo socota wadankan Mauritius. markaan furaynay brokerkan sanad horteed ayaan the application-kii sameeyay sidaan u qaadan lahaa license-ka Antigua uga qaadan lahaa. marka wax walba wuxuu doonayaa qorshe. marka waan fahansiinay regulatory-ga ku yaala Antigua and Barbuda inaan the client-keenu qaarad walba ka iman karaan. marka client-nada Mareykanka degan ma qaabilno iyo client-ka Caribbean-ka degan ma qaabilno. client-nada wadana aanu qaabilin baa jirta sida Suuriya, North Korea iyo Libya ma qaabilno. laakiin qorshihii baan dhignay oo odhanay the client-keenu most of our client waxay ka iman doonaan Europe, Latin America, Khaliijka iyo Asia intaa bay u badan yihiin. iminkana insha Allah Soomaalidana hadda loo soo jeesanaya insha Allah. qofka doonaya maanta inuu trade gareeyo waa maxay documentary-ga aad ka rabtaan amaba aad ku qiimeysaan qofka? horta client-ku door continent iyo wadana u kala baxaan. waxaan ana ku leenahay wax system AI ama machine learning oo noo sameeya KYC-ga wax la dhahdo. KYC-gaasi kelmadaasi waxay ka dhigan tahay know your client. maanta client-kii markuu isdiiwaan gelinayo waa inaan client-kii aqoono qofku yahay inuu client-kani any financial crime uu gelin. marka systemyo laga eegaa jira oo ku rakiban brokerka oo AI ama machine learning. marka qofkii uu isdiiwaan gelinayaa passportkiisa iyo proof of address-kiisa ayuu soo diiwaan gelinayaa. waxay ku qaadanaysaa taqriiban 3 to 7 minutes haday waraaqadihiisu u dhan yihiin. client-ka Europe jooga, Khaliijka jooga, Asia ama Latin America jooga. sababta datada waa inay ku xirnaataa system-kan aan isticmaalno la dhahdo Shufti Pro. markayna wato client-ka Soomaaliya client-da Soomaaliya waxaan sameynaa manual intervention. waxaan ka eegnaa system-yaal kale ayaan ka eegnaa manually. waxaan eegnaa de qofkani
inuu horta 18 jir yahay ugu yaraan, inuu qofkani documentkiisu sax yahay, ID-giisu isku soo diiwaangelin karaa. marka Soomaalida waa loo dhib yareeyay markay noqoto dhinaca KYC-ga wax aad ugu adag bay ahayd. qorshaan u sameynay regulatory-ga aan ku odhanay marmar proof of residence-ku warqadan caddeynaysa xaggaa degantahay way ku adag tahay Soomaalida. marka client-kii maanta hadduu isaga soo shubanayo local deposit oon ka hadli doono aan u sameynaya kana client-ka loogama baahno wax la dhahdo proof of address warqad caddeynaysa meeshuu degan yahay. waxa looga baahan yahay baasaboorkiisa ama driving license-kiisa ama national ID-giisa aan ku furanaya Soomaaliga ah meel kastuu joogo. meel kastuu joogo. haddaba hadda waxaa jira akoono fara badan. horta innaka akoonkeenu su-aashaasi way naga maqan tahay. akoonkeenu ma waxa weeyaan ma aha funding soo maha ina may account-keenu funding ma aha. waa qofkiibaa waa oo financial market waxa weeye waa broker, CFD broker. waa maanta shirkad ku siinaysa fursadii sida uga ganacsan lahayd suuqan forex-ka exchange. fundingna ma aha oo lacag horo meesha sii taali, laakiin lacagtaada haba ugu yaraatay intee ugu yar markaan lacagtaan ku shuban kara maanta? waxa ugu yar $50 baa ugu yar classic account-ka. waxaan haysanaa 3 type of account uu account-ku u yar yahay $50, ka labaad uu yahay $1,000, account-ka saddexaadna $5,000 tahay. laakiin wax funded account ma aha. funded account-ku sida u taqaanid wax regulation leh ma aha. so financial market waa shirkad fully regulated wax maanta aan ka qaadano client-ka lacag aan ku leenahay anaka ni maalgelinayna waxaasi ma sameyno. Islamic trade nooceedu samaysan? Islamic account waxay ka dhigan tahay horta waa in la fahansiyo dadka. account-ka markaa maanta furatid masalan position furatid euro USD gaba ka soo qaad. daiman waxaan qaataa masalka euro USD ga is the most traded currency weeyaan. marka position-kaagi hadday furan tahay wax ka badan 24 hours liquidity provider-ku wuxuu charge garayaa dadka wax la dhahdo swap-kaasina haddaa la tarjumada waxay ka dhigan tahay waa interest rate bay noqonaysaa. waxay noqon kartaa positive ama negative bay noqon kartaa. marka wixii xisaab islaamiga qofku wuxuu arkayaa de wax oo sidii ribo oo kala interest oo soo fuulaya qofkii. marka dadkii doonaya xisaab islaamic account waan u furi karnaa, laakiin waxay ku xiran tahay qofka his trading style. hadduu qofku yahay intraday trader uma baahno xisaab islaamic account. waxaa jira haddaba shirkado fara badan oo funding FTMO, funding nuggets, funding babies. shirkadaha maxaa nooga sheegi kartaa? waa shirkado aad horta imka suuqa usoo galay oo bulshada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu mashquulsan tahay. marka horta dhinaca modelka oo financial market markaan sheego business modelkeenu siduu yahay waa muhiim inay dadku fahmaan. sababta two type of company baa kala jira. business modelkeenu waa wax la dhahdo STP, straight through processing. waxay garan tahay waxaan haysanaa license-kii reception and transmission order. client-ku masalan imika MT5 ku trade gareynayaa order-kii markuu yimaado markaaba waxaan u tabinaa suuqa. straight through processing baa la dhahdaa. shirkadahan funded account-kii iyo maxay ahayd prop trading firm-ka waxa weeye waa shirkado ku xidhneenba suuqa caalamiga oo dadkii maanta lacag ka siinaya account demo account serverka markaa gelinaysid waa arkaysaa in waxaan inuu yahay demo account oo xisaab $100,000 lagu leeyahay. maanta xisaab $100,000 baa lagugu shubi, $50 xisaabtaa baa siisan doonta. su-aal haddaan dib ku weydiiyo adigu masalan haddaa aragtay imika guri $100,000 ma lagaa siin karaa $50? markaasi waxa weeye de waa wax market-kaba gaadhayn. waa maxay ahayd waa wax loo soo package gareeyay dadka oo marketing looga dhigay. waxa weeye laakiin waa systemkii MLM-ka multi level marketing ama Ponzi scheme ayay tahay. wax runo dad suuqa ka ganacsanaya forex-ka maaha. suuqii forex-ka ma gaadhinba. suuqii forex-ka ma gaadhin. demo account baa maanta dad fara badan bay haddaba lacag kaga lumaan. waa maxay nasteexada aad siinayso amba waxaad ugu waajihinaysaa dadka? horta imika dadkii doonaya inay ka ganacsadaan suuqan forex-ka oo de maxay ahayd doonaya inay la soo xidhmaan shirkad duwaliya oo maxay ahayd ruqsad haysta sida oo financial market oo kale. hadduu qofkii experience leeyahay waxaan waa soo dhaweynaynaa ahlan wasahlan meeshuu joogaba mushkilad male. hadduu qofkii experience na lahayn
waxaan horta ku odhan lahayn inuu dadkaasi horta soo qaataan macluumaad iyo information iyo trading ay soo galaan intayna suuqa isku soo turin waayo suuqani waa suuq aad u riski badan maxay ahayd inkastoo lacago laga sameeyo laakiin hadda aqoon fiican u lahayn oo wixii risk management lahayn oo de maxay ahayd soo gelin koorsiyaal ku baraya waxaan sida u socdaan free demo account xitaa oo financial market waa ka furan kartaa maanta qof lacag kaa qaadaya ma jirto waxaasoo dhan waa ku tababaran kartaa ama waxaa la soo xiriiri kartaa akademiyaal soomaaliya jirta oon la shaqeyno ay masalan zay sahal software oo engineer maxamed jaamac iyo sharmaaki madax ka yihiin oo akademiyadii u horreeyay suuqa soomaaliyeed weeyaan 2018kii marka dhalinyar badan oo kasoo qalin jebisay akademigooga wayna la shaqeeyaan inaan kaloo xitaa nadiif la dhahdaa jira oo isna academy la dhahdo P4P trading marka dadkaasi waa dad maanta training ugu siinaya luqadii soomaaliyeed wixii isfahmaysiin markaana diyaar noqotid ana assessment samaysid riskiga live account-kaaga iska furan kartaa shirkadeenu maxay kaga duwan tahay shirkadaha kale maanta u shaqeeya dad waynu soo sheegnay KYC wuxuu yahay so si ay isaga laftigiisa usii fahmaan dadku iyo sida waxaynu ka bedelnay maanta sidaan ku sheegay oo financial market waxa weeye business modelkeenu waa STP model straight through processing maxay ahayd ma jiraan wax conflict of interest oo dealing desk iyo waxa ma lihiin oo intervention ku sameyn kara client trading account shirkadahan kale ee badankoodu jirana waa shirkado iyakuna ruqsado kale haysta oo shirkado oo ruqsado market maker haysta marka waan kala duwanahay shirkadaha ebook sida STP go kale iyo sida market maker ko kale waan kala duwanahay marka shirkad walba waxay ku keenaysaa de suuqi maanta xaq uu joogo live feedki waa helaysaa laakiin market makerku wuxuu ku siinaya wax la dhahdo synthetic environment slippagekiisa trading environmentkiisa waa wax uu isagu sameynayo weeyaan oo waxaaba loo dhahdaa market maker anaku oo financial market waxa weeye waa completely different waa STP broker weeyaan marka sicirada iyo trading conditionka nooga imaada liquidity providerkeena uma dadka u sii tabinaa dhibaata ka haysata maanta haddaba soomaalida maxaynu inagu ka bedelnay amaba qorsheenu muxuu yahay KYC markii timaado wallahi wax badan ban la qabanay horta bulshada Soomaaliyeed ka dhinaca ugu horeyso horta KYC-ga aan u fududaynay oo qofkii laga doonay un ID proof of address laga doonay ma zaalo qofkii isticmaalayo local deposit qofkii maanta hadduu isticmaalayo shirkadda oo financial market waa shirkaddii maanta u horeysay ee Soomaaliyeed ee local deposit leh hadday slogan-keena aragtid waxa weeye waa global market local expertise maxay ka dhigan tahay suuq walba waan aqaanaa siduu u shaqeeyo maanta suuq Latin America waxay doonayaan specific deposit and withdrawal method khaliijku kadaalo local method bay leeyihiin depositna way leeyihiin marka waxaan is odhanay haddan dadkii kale ajaanibkaasi u fududaynayaan siday depositkii iyo withdrawalka u sameynayaan Soomaalidana maxaan ugu sameyn weynay marka Soomaalida qorshahan u sameynay awal way ku adkeed inay crypto helaan bay ahayd ama inay kaarkooga isticmaalaan kaarkooga hadday Premier Bank maanta isticmaalaan waxa laga yaabaa PSP-geenu PSP-gu waxa weeye waa payment solution provider waa shirkadahan ku siinaya gateway-gii lacagta lagu shubi lahaa markay arkaan kaar ka soo baxay Soomaaliya oo deposit doonaya inay sameeyaan waxa laga yaabaa inay transaction-ka decline gareeyaan inay ogolaan waayo sababta Soomaaliya is listed as a high risk country ay ka soo qaadeen marka qofkii maanta Soomaaliga fahmaya suuqan siduu socdo doonaya inuu isdiiwaan geliyo ka ganacsada suuqa forex-ka una la soo xiriiri karaa local deposit-na waxaan karaa wuxuu isticmaali karaa waxaan haynaa imika maxay ahayd EVC Plus Premier Wallet local bank bas ku isticmaali karaa qofku account-kiisu iska furmanaya marka information-ku sida passport-kiisa tahay waa inuu isku sajilo dad baa marka qaldama taariikhda dhalashada iyo magacooga ama af Soomaali ku soo qoray laakiin sida official document-ku ugu qoran yahay ayuu noo soo diiwaan gelinayaa duulada marka dhibaatada ka haysatay Soomaalida dhinaca KYC-ga iyo dhinaca funderkii iyo withdrawal-ka sida lacagaha ugu shumin lahayn ay kala bixi lahayn waan u xalinataa bulshada Soomaaliyeed customer support-kan waa sidee noocuu shaqeeya horta waxaan leenahay multilingual customer support waxa horta shirkadani waxa weeye horta waa shirkad duwali ah oo la tartamaysa de shirkadahan brokerka caalamiga sida FX Pro ama shirkadahan kale Soomaalidu garanayaan FX Primus marka
waa inaan soomaalida u cadeyno aynan fahmin ay odhan de ninkani waa nin malaha noo soo shaqo tegey oo broker soomaaliya soomaalidan u furay marka waa shirkad duwaliya weeyaan oo international laakiin si ziyaada u saacidana bulshada soomaaliyeed markay noqoto customer support su-aashaadi haddaan ku jawaabo waxaan haynaa customer support faransiisa ingiriisiya carabiya portugiish spanish iyo somali soomaaligu waxa weeye waa dadka quraatay maanta live customer support ku helaya luqadii soomaaliga lagu soo dhaweynayo emailada xitaa ay kusoo diraan luqada soomaaliga soomaali lagu soo tijaabiyo waxaan haynaa wax la dhahdo support somali desk laba qof baa u joogta soomaalida oo bulshada soomaaliyeed soo dhaweyn doonta haddii la yidhaahdo sida hore u sheegtay wadamo fara badan baad ka kala aada u shaqaysaan marka waqti badan baan filayaa inaad la soo shaqaynayseen dadka kale dan haddana maanta aada go-aansatay in aad soomaalidii wax ku soo celisay so taas waxaa caddaynaysaa in aadan usoo shaqo tegin laakiin haddaan su-aalba ka dhigo waay aad iyaga ugu soo noqotay adigoo awoodaya inaad wadamada kale o dhan wallaahi sidaan kuu sheeg horta nasiibkaa keenay inaan de qof soomaaliya noqdo oo ugu horeeyo oo brokerkii sameeya waa aragtay forex broker and CFD broker marka shirkadihii forex way bateen anagu hadafkeenu waxa weeye aan very competitive noqono markay noqoto international levelka soomaalidina de daa'iman anigu waxaan doonaya inaan saacido bulshada soomaaliyeed waan gartay inay dhalinyartina aad usoo gashay suuqan forexka ee de markay bilaabayeen 2017kii 18kii ay si yaroo soomaalidu aqoon ay ku lahayn forexka ay si xooga usoo gashay marka iminka jiilkan jadiidka dhalinyarta iminka soo gashay ee prop tradingkii waxaa ku mashquulsan waxaanu leenahay hadday trading riska aqaanaan oo financial way soo gali karaan waa sidan clientna adduunka oo dhan baan la wada shaqeyno masalan latin america ama asia markay noqoto ama kuwait oon iminka galayno waxaan la shaqeynaa dad affiliate ama akademiyaal leh ama wax la dhahdo introducing broker markaas waa wax ay brokeradu duwaligoo dhanba u shaqeeyaan qof baa masalan hadduu maanta academies ka leeyahay uu dee dad dhalinyaraa uu barayo forexka siduu u shaqeeyo markay studentkaasi soo dhameeyaan academiga dhinaca forexka way nagu soo xidhaan annakayna la shaqeeyaan masalan qofkii accountkiisa iska furanayo waanu garanaynaa qofkaas inuu academigaasi ka yimiday marka sidaabaan suuqyada u galnaa most of our business waxa weeye waa partner oriented in badanoo google advertising iyo waxaa ma samayno waa wax dee dadaan isi soo aqaanay 10kii sannadood ee u dambeeyey de kalsoonina naga dhex maasha allah hal dad fara badan baad haysaan mashaakil baa imanaysa idan qofka soomaaliga maanta haddaan imaado mushkiladda igu timaada ee iga qabsata financial seed ugu tala gasheen inaad u xalitaan mashaakilka horta mar walba haddii license aad qaadanaysid maanta masalan markaan license ka qaadanayna Antigua and Barbuda waxaasoo dhan qorshahaasoo dhan waa inaa soo bandhigtaa waa aragtay qofkii clientku hadduu dhibaato ku timaado dhinaca tradingka ama dhinaca financeka hadday dhibaato ka timaado ama dhinaca KYC-ga hadday dhibaato ka timaado waxaan leenahay email official aan leenahay qofku nala soo xiriiri karaa info@ofinancial.market waxaan leenahay telephone imaratiya whatsappka oo 24 hours available maktabkeenina wuxuu ku yaalaaba dee Dubai dadku wayna soo ziyaaran karaan mushkilad male marka waxani waa wax qorshaha marka intaana qaadan license-ka waa waxaa sii diyaarinaysid xitaa waxaan marnaa wax la dhahdo stress test hadday serveradaadu hoos u dhacaan wax business continuity waa inuu jiro marka servero kalaan leenahay haddaa la haakareeyo serverada waxaan leenahay cyber security extremely important waxaan nagu sameeyaa audit every 3 months shirkado ajnabiyana eega siday ahayd KYC-geenu siduu yahay cyber security-gu siday tahay iyo integrationkan aan wada sameynay fix API bay wax walba ku wada xidhan yihiin qaabkay u socdaan iyo qaabkay u shaqeeyaan marka waaba waxay ahaydba shirkadii Soomaaliyeed u horeysay ISO certification qaadatay dhinaca integrationka waxaan oo dhan waa qaab ay isku wada xidhaysid oo the fix API integration ay ku wada xidhan tahay intaynu ISO-da gaadin wayna ka hadli doonaa certificate-ka ISO loo qaatay laakiin maxaad ku halbaagiin waa maxay sideed u qiimaysaan inuu qofka client-kii ku qancay shaqadii iyo hawshaada u qabatay de horta wax walba waxa jira wax la dhahdo due diligence iminka wax walba officially waxay ku qoran tahay website-ka client-ku waa arki kara license-ka waddankan ka haysano shirkadda waxa la dhahdaa O Financial Market trade name baan leenahay oo la dhahdo Omni Market
marka clientku waa qasab bay ku tahay inuu due diligence-kii soo waxeeyo uu da shirkaddan soo baaro uu siduu shirkad walba u soo baari lahaa badankooguna waa dad aan isnaqaano oo nooga yimaada partner marka wixii hadday kalsooni suuqi jirto waa very easy marka selling processkii baa yaraanaya marka onboardingii baa very easy noqonaya dadku waxay ka imanayaan academy mucayana ama waxay ka imanayaan school aan la shaqayno ama signal provider ama academy bay ka yimaadaan marka is very easy sidaan clientka u qaabilno feedback saad uga qaabataan dadka markaa kala duwan eed la shaqaysaan si aad customer supportkii aad u wanaajisaan waxaan haynaa every support waxaan haynaa support desk marka waxaa jira automated clientka waxaa loo dili karaa maxay ahayd emailo automated oo feedbackooga la doonaya in la maqlo ama every client ba wuxuu leeyahay waxa la dhahdo business developer manager ayaa de maxay ahayd qofkii soo wacaya documentkiisii saacidaya markaana dadka waxaan ku dhahnaa de hadduu serviceka ku cajibiyey spreadkeenu hadduu ku cajibiyey trading conditionkeenu haddii ku cajibisay Trustpilot review nugu samee so waa wax we are very close to our client sababta hadda meeshu waa very competitive market haddaa clientku is our asset maanta clientkii haddaa feedbackkiisa maqli weyno de waxay noqonaysaa inaa meeshii competitive aan noqonin marka is really important feedback clientku hagaag haddaynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena hore waxaad usoo yaro tilmaamtay in qofka soomaaliga aad u fududayseen paymentkiisii marka paymentyada noocyada soomaalidu ay isticmaalaan way kala duwan tahay maanta oo muqdishada kuwa jooga FEC iyo waxyaalo kale isticmaalaan kuwa jooga xaggan Somaliland iyo waxay isticmaalaan zaadkii iyo dahab waxyaalo kala duwan bay isticmaalaan sideed ugu fududaysaan in paymentka lacagahayga ku jira maanta aan ku trade garayn karo ka shuban karo ka isticmaali karo waxa nidaamka aad u samayseen inuu kaga duwannahay meelaha kale waxaan waa nidaam horta ku jadiida brokerada waxaanu nahay brokerkii u horeeyey optionkan iyo solutionkan siiyey bulshada Soomaaliyeed waxani wax jadiidana maaha sidaan kuu sheegay wadannada kale aan la shaqeyno Tanzania Uganda ama Kenyadan agteena waxay isticmaalaan M-Pesa marka waxa jira shirkado la dhahdo PSP Payment Solution Provider ayaa jira oo solutionka ku siinaya oransa client iska soo diiwaan gelinaya wadankan waxaanu doonaynaa inaan local depositkii aan hayno siduu clientkaasi degdeg ugu shubto lacagtiisa withdrawalkiisana within 24 hours uu soo qaado waayo waxaa la joogaa iminka waqti dadkiiba de wax kastaba very fast environment ay tahay marka bulshada Soomaaliyeed waa wax jadiid aan u sameynay dhibaatay ku ahayd markii hore sidii lacagaha u diri lahaayeen inay crypto doonaan bay ahayd ama inay bank wire sameeyaan bank wire ku marmar wuxuu qaadanayay 3 week ayuu mesela Soomaaliya ka qaadanayay haddana lacagtuba si halaabin marka clientka internationalkana markay noqotay iminka arrimihii USDT-ga aad u dhib yaraysay marka Soomaalidu intayba USDT ay dondoonin waxaan u fudud garaynaa inay e-walletka Soomaaliya ay ku dhigan karaan xitaa banankana ay ku soo xawili karaan so waxay isticmaali karaan waxay isticmaali karaan Premier Wallet Wafi Wallet e-dahab iyo EVC Plus so intii ugu weynayday isticmaali kareen oo isticmaali marka ma trade garayn oo kaliya ku isticmaali karaa mise withdrawal laftigeega ma isticmaali karaa horta waxaa jira waxa la dhahdo AML rules oo ka dhigan anti money laundering markuu clientku maanta si soo diiwaan geliyo uu passportkiisa iyo wixiisii ay accountkiisii approve u noqdo ma qaabilno horta deposit bidun verification taasi awal bay taasi socon jirtay shirkadaha shuruudooda ku xiran tahay qaar baa ku oranaya KYC uma baahnid document uma baahnid haddaa dhigaysid lacag $2,000 ka yar marka sidan ana ku dhibaato weyn u yeelan waxaan leenahay dadkii horta inuu waraaqadihiina soo diiwaan geliya markuu accountkiina approve noqdo ayaa lacagaha ku shuban kartiin marka qofku maanta hadduu zaid ku soo shubtay lacagtiisa zaid un bay ku noqon kartaa hadduu ku soo shubtay crypto un bay ku noqon kartaa marka dariiqadu ku soo dhigtay un bay lacagta ku noqonaysaa hadda dariiqad kale ugu sameeyo waxa laga yaabaa inuu khalkhal naga galo deregulationkeena oo la dhahdo waxa sameynaysa wax la dhahdo money laundering waxaa jira akaadimiyad aad soo wadaan akaadimiyada maxaad nooga sheegi kartaa sidee loo gelayaa qorshaheegu waa maxay ay ka leedahay bulshada Soomaaliyeed
akaademiyadan soo wadnaa hadduu ilahay naftan u daayo sanadka jadiidka 2025 ee soo socda bilowgiisa. marka akaademiyadaasi waa akaademiyad horta freely ku siin doonta education bulshada Soomaaliyeed ee doonaysa inay suuqan forex-ka barato sidii looga ganacsan lahaa. marka forex uun bari mayso, waxay bari doontaa hadda anagu waxaan haynaa more than 200 instrument ay ku trade garan karaan, stock baa lagu trade garan karaa, indices, commodities, energy dadku waxaasoo dhan ku trade garan karaan. marka akaademiyadaasi waxa weeye waa akaademiyad insha Allah u keeni doonta knowledge badan bulshada Soomaaliyeed ee doonaysa inay forex gasho insha Allah. hore waynu kaga soo tilmaamay certificate-kii ISO, bal cabdiqaadir oo markaad qaadanayseen sidaad ku qaadateen, bal maxaad nooga sheegi kartaa maxay kaga duwan tahay certificate-yada kale? waa su'aal aad u fiican weeyaan. marka dhinaca forex-ka noqoto waxay tahay waa one of the first broker oo ISO certification ka qaatay. sida u qaadan lahayd ISO certification kaasi waa inaad samaysid application oo ISO laftigeeda u samaysid application oo de fahansiisid business modelkaagu siduu yahay. business modelku iminka dadku waxay arkaan MT5 platformka ama MT4ku sida u shaqeyso, laakiin qaabka ka dambeeya iyo sida u shaqeeyo iyo sida integration ku tahay, KYC-deena automatedka, risk management-keena sida u socdo iyo sida KYC-ga loo sameeyo client-ka. marka business plan baan waxaan ugu gelinay maxay ahayd ISO certification-ka, way eegeen taas bay nagu sameeyeen, markaa bay dhahdeen yes your company is well organized, marka ISO certification baan isla. Masha Allah. maxay ku caawinaysaa markaa maanta shirkadeena haddii ay sidato shahaadada? waxay de credibility bay siinaysaa shirkadda. marka wax la arkaya in de shirkaddan shirkad nidaamsan tahay oo de si fiican u shaqeysa oo systemkeedii waxay oo dhan iyo technology-geeduna uu up to date yahay. marka this is really important. this is markay noqoto shirkaddu sida u shaqeyso, this is my daily job. dadku malaha waxay moodayaan inaan trader yahay oo maalin walba trade garanayo. waan trade garan jiray, laakiin shaqadeeda waxa weeye de inay wax kasta liquidity provider-kii, CRM-kii, integration-kii, KYC-gii iyo wax walba de si fiican u socdaan. marka taabaa waqti badan iga qaadata. markaad trader waxaan jeedaa brokerku markaa ma trade garan kara miya? may brokerku ma trade garan karo. haddaa waxa u baahan tahay ruqsad kale, license kale u baahan tahay. waa asset management ayaa markaa noqonaysa ama portfolio management. taasi waxa weeye waa ruqsad kale ama license kale oo qadimi kartid. maanta ma noqon kartid brokerkii meeshay ka dhacay trade-kii waxa la dhahdaa execution venue and at the same time the portfolio management. waa conflict of interest baa jira. marka anagu waxaan nahay un purely broker oo ku siinaya maanta fursadda ay ku ganacsan lahayd suuqa forex. So basically brokerku waxa the background waad arkaysaa waxan soo socdo. waxan of course waa arkaysaa sida uu socdo. marka waa ka gaabsay weeyaan. anigu waan ka gaabsadaa sababta waqtiba uma hayo. Okay. markii aan suuqa ku jiray badankeydana 2018 17 aan ku jiray waxyaabo kale aan ku mashquulsanaa. so shaqooyin kale aan sameynayay. marka anigu waxaan ku trade garan jiray algorithm. waxayga oo dhan indicatoradeed oo dhan baan ku diray jiray MQL4 programming baan ku sameyn jiray. marka robotkaasa i trade garan jiray. horumar tiknoolajiyadeed baa dhacaya maanta. qorshaha waa maxay ay ka leedahay oo financial in horumarka tiknoolajiyadeeda socda ay ka mid noqoto? markay noqoto dhinaca teknolojiyada horta waxaanu nahay up to date. teknolojiyadii u dambeeyey markay noqoto dhinaca forex-ka ayaanu haysanaa. platform-kanan maanta isticmaalno waxa weeye waa platform MT5 uu ku horeeyay MT4 oo ka soo socda shirkaddan la dhahdo Metacode oo shirkad Ruusha weeyaan. badankuna waxaan la shaqeynaa third party provider ayaanu shaqeynaa markaan la shaqeynaa markay tahay broker, because wuxuu dhan kaligaa ma samayn kartid. maanta haddaad doonaysid inaad CRM kaligaa samaysid waa samayn kartaa, laakiin waxay kuu qaadan kartaa 2 sannadood 3 sannadood ilaa intuu CRM-kaagu soconayo. laakiin you can outsource. waxaa ka qaadan kartaa shirkada caana jira oo de ku siinaya CRM-kii, shirkada ku siinaya liquidity provider-ka ku siinaya, shirkada ku siinaya serveradii. marka shirkad walba iyaday qasab ku tahay de inay up to date noqdaan technology-googu. markay sameynayaan any update training bayna siiyaan. waxay dhahdaan de qaabkaaba imika isbedelay technology kim kastaaba u socotaa. marka training bayna siiyaan on a daily basis. dood baa badanaa dadka forex-ka isticmaala kusoo noqnoqota.
maadaama ood backgroundkii garanaysaan iyo Mm. suuqii siduu u socdo Mm. su-aal baa ah odhanaysa soo noqnoqota suuqa ma waxaa jiheeya fundamentalka mise waxaa jiheeya technicalka waxyaabo badan baa horta suuqa wallahi saameyn kara ee ugu horeyso dee maxay ahayd dhaqaalaha wadanka ama newska iminka waa kuwa soo socdan electionkii ay kasoo socoto maraykanka waxaas waa wax saameyn kara maxay ahayd dhaqaalaha maraykanka ama yurub waxaa jira wax kale dee geopolitical situationka ayaa isna saameyn kara financial marketka iminka dagaalkan iyo waxaan socda waxaa laga yaabaa inuu Ukraine baa soo qaadan kartaa waxaa soo qaadan kartaa xitaa kan iminka socda badda cas ka socda waa aragtay khaliijka iyo dowladan ka socda markaas waa wax dagaaladaas waa wax saameyn kara petrolka oo kale kasoo qaata saameyn kara sababta petrolku 30% of the petrol wuxuu soo maraa dhinaca badda cas siduu Europe u gaadho dhaqaalooyinka wadankuna dee way saameyn karaan iminka waxaa eegi kartaa shaqooyinka soo baxaya wadanka maraykanka ay mise kunba yihiin ama sicir bararka masalan ka taagan Europe waxyaalahaasoo badan baa saameyn kara suuqa forexka qof kastoo forex ku jira hal shay baa lagu celceliyaa waa psychologyga iska dhis marka trade garanaysid waxay kaaga baahan tahay mental psychologygaagu inuu aada u dhisnaado maxay tahay maxaad ku waanin lahayd qofka halkuu iska hagaajin karaa psychologygan muxuu qofka ka bedeli karaa haddii uu si fiican u barto waxyaabo badan buu ka bedeli karaa marka horta waxa shayga muhiimka u horeeya waxa weeye waa knowledge waana cilmi u yeelataa waxa marka psychologyga markay noqoto waxay ka dhigan tahay qofku siduu suuqa u soo galayo dad badan baa maanta suuqa iska soo galaya oo iska trade gareynaya oo haysan wax la yiraahdo business plan ama strategy haysan maanta kaba soo qaad waxaa suuqii ku soo gashay 1,000 ama 2,000 dollar psychology ba ku soo gashay waxaad doonaysaa maanta inaad trade gareysid kaba soo qaad euro USD kaba soo qaad marka plan wixii hadda haysan ama istaraatiijiyad hadda haysan ama risk management hadda haysan waxan waa wax psychologically ku saameyn kara weeyaan waxa arkaysaa lacagtaadiyo masalan gubanaysa oo de trade-kii uu si fiican u socon laakiin hadda la soo gashay dariiqad aad oranaysid okay maanta waxaan trade gareynayaa this specific asset euro USD kan trade gareynayaa suuqa maanta waxaan ka doonayaa masalan $100 haddii dhinacaygu suuqa u kaco hadduu dhinacayga u kici waayana waxaan lose gareyn karaa $50 iminka waxaa leedahay marka istaraatiijiyad baa leedahay laakiin badanka dadkoogu istaraatiijiyadda ama galaan suuqa way iska galaan marka waxaas waa wax trading psychology waxaad ka dhawaajisay dariiqooyin haddii aan bal ku weydiiyo dariiqada ugu wanaagsan amaba aad is leedahay waxtar bay leedahay marka tradingka la joogo ICT baa jirta maxay way badan yihiin so dariiqada ugu wanaagsan aad odhan karto way ugu fiican tahay wallahi nin walba waxay ku xidhan tahay horta asset ku trade gareeyo iyo xilligu trade gareynayo ayay ku xidhan tahay iyo even waqtigay ku xidhan tahay marka waxaa jira indicatoryaal badan buu qofku isticmaali karaa isagay ku xidhan tahay siduu istaraatiijiyad walba waxaa laga yaabaa imika istaraatiijiyadaadu hadday ku shaqeynayso euro dollarka nafs istaraatiijiya inay ku shaqeynayn dahabka hadday noqoto marka client walba isagay ku xidhan tahay indicatorka uu doonayo inuu isticmaalo iyo time frame ku trade gareynayo qaar baa ku trade gareynaya time frame 15 minute 1 hour 4 day daily chart marka waxay ka dhigan tahay waa inaa eegtaa what is your target in the market are you going long term mise intra trading baa sameynaysaa different indicatorka waxaa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo 15 minute chart moving average masalan laakiin uu ku shaqeynayn on a weekly chart haddaad doonaysid trade-ka imka furitid oo de xidhid trade-kan in couple of days dad baa entry point-kaagana way ku xidhan tahay masalan haddaa imka arkaysid dahabkii inuu kacayo dahabku muxuu kacaa badanka markuu dhaqaalaha wadamada waa aragtay ama hoos u dhacaan ama lacaguhu hoos u dhacaan waxaa la dhahdaa waa safe haven dadku waxay iibsadaan badanka goldka markaabuu aada u kacaa marka waxay ku xidhan tahay istaraatiijiyadaada are you long term trader ama intraday trader soomaalida muddo badan waxaa soo dhex galay in ay maal gashadaan akoono diyaarsan bay maal gashanayaan kadib ama lacag bay meel dhiganayaan oo broker bay u dhiibanayaan kadib waa loo trade gareynayaa halkaasay lacag ka faa'iidayaan inakuma sameynaa arrinka ama arrinka maxaad ka odhan lahayd maysahay anaku arrinka horta ma sameyno
sababta sidaan kuu sheegay waa broker maxay ahayd STP maanta qof ma maqlisid qof ka odhanaya oo ay financial kaaga la soo hadlayo ka odhanaya lacag noo shubo kaale lacag soo dhigo annaka ku maalgelinayna marka shirkadaha waxaa ku sameynaya ama dadka ku soo galaya bulshada Soomaaliyeed ee ka odhanayna annaka nii maalgelinayna Soomaalidu waa inay horta weydiiyaan license-ka ama ruqsadda caddeynaysa inay ku maalgelinayaan waa inay horta taa ay kalsooniyana eegaan weeyaan marka oo financial market maaha shirkad maanta ku odhanaysa keen lacag annaka ku maalgelinayna dadkana waa in la iska ilaaliyo weeyaan waa dad bulshada Soomaaliyeed aad u soo dhex galay oo lacaga badan lagaga dhacay weeyaan hore ma ula soo kulantay ama ka hadda ku jira ama qofka ku fikiraya inuu nidaamyada sameeyo cid u dhiibto lacagtiisa kale bal taladaad siin lahayd may horta waxa ka qurux badan qofkii hadduu doonayo inuu ka ganacsado suuqa forex-ka awal waxaasi way dhici jirtay sababta dadku dee brokerka khibrad kama haysan ama knowledge kama haysan laakiin iminka bulshada Soomaaliyeed since 2017-18 bay kusoo jirtaa marka wixii waa la kala fahmay iminka suuqa qofkan ku odhanaya maanta anaa lacagta ku diiwaangel anaa maxay ahayd ku maalgelinaya bishiiba intaa ku sameynaya waa inuu yeesho track record oo tirahdid qofka okay ma haysaa xisaabo aad ku soo shaqaysay imisa ay soo celinaysaa bishii qaar baa ku oran jiray 50% baa lagu soo celinayaa bil walba waxaan markaa ku eegtid suuqa forex-ka wax aqli gala maaha suuqa forex-ka maanta 1-2% haddaad samaysid client European imka haddaad ku samaysid 2% baa bishii ku sameynaya waa scam baad ku leeyahay sababta 24% baa soo celinaysaa sanadkii dadkii bulshada Soomaaliyeedna waxay doonayaan 50%. This is wax aqliga gali karaa ma marka waxaan ku talin lahayn inay dadkaasi iska ilaaliyaan dadka koranaya waxa baan sameeynaa directly na nala soo xiriiraan oo financial market uu account-kiisu isaga iska furto isagu bas ka maal xaguu galaya maanta haddii aan doonayo inaan si toos ah kala soo xiriiro website-ka galaysa www.ofinancial.market description-ka hoosaad ka helaysaan ugu dambeyntii ayaynu soo gaarnay waa maxay qorshaha ay leedahay shirkadda oo financial market amaba ay ka leedahay geega Soomaaliyeed iyo future balaanka waxaad qorsheynaysaan insha Allah qorshaha horta aan ku jirno waxa weeye first of all oo financial market ay noqoto broker number 1 markay noqoto dhinaca bulshada Soomaaliyeed iyo geeska Africa East Africa waxaan doonaynaa inaan noqono broker number 1 sababta brokeradii badnaa imika badan kuga jiray ama brokeradii waaweynaa way ka baxeen suuqyadan Afrikaanka sababta waxay u baahan yihiin different payment methods ayna badan kuguna garanayn marka hadafkeenu hore waxa weeye to be the broker number 1 inshallah in Africa بعد سنتين هاد ويلها نفتن ودا waxaan rajaynaynaa why not to be one of the best broker in the market inshallah wax kale aad ku dari lahayd ma jirtaa tamam tabarkoodaya aad baan idin salaamayaa waanad ku mahadsantihiin ugu dambeyntii waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena aadna waad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan ee barnaamijkan ula socoteen haddaba haddii aad doonayso macluumaad intaa ka ballaaran inaad ku ogaato shirkaddan aynu maanta ka hadlaynay ee marti u ahayd Mayhal Podcast waxaad ku ogaan kartaa www.ofinancial.com oo description-ka xagga ugu hooseeya hadda xagga ugu sareysa ku yaala amaba nambaraantooda iyo ciwaanada aan idiin soo dhigi doono ayaad si toos ah ugala xiriiri doontaan sidaa iyo fi amaanillah